qaybta maantana waxaynu kaga hadlaynaa sida loo diyaariyaa c v waxaynu u naqaano c v sideedaba waa kelmad ingiriisi waxaanay ka taagan tahay curriculum vita oo waxa weeyaan warqad ama iyadoo warqada ama electroniga qofku ku qoro taariikhdiisa shaqo iyo taariikhdiisa waxbarasho iyo wixii soo raaca labada waa intaasun c v-ga la sheega waa taariikhdaadii shaqo iyo taariikhdaadii waxbarasho oo aad ku dartay uun waxoogaa wixii labadaa caawinaya c v-ga markaa maxaa lagu falaa c v-gu waa warqad ka wakiilo qofka uu u isticmaalo marka uu shaqo qorto maadaama qofkan loo shaqaynayo ama shirkaddan loo shaqaynayo ama wasaaraddan loo shaqaynayo iyo dadka doonaya shaqada soo codsanaya aanay iswada arkayno badan yihiin adduunyada meelo badan ku kala nool yihiin warqaddaa c v-gu waxay wakiil ka tahay qofka dadkii markaa shaqada in loo shaqeeyo doonayay ee yidhi dad noo shaqeeyaan doonayna c v-yadii iyo dalabkii markay usoo wada xeroodaan dadkii waxay ka garanayaan warqaddan ayay ka akhriyayaan oo odhanayaan qofkani uu fiican yahay qofkani uu ku dhadhow yahay qofkani naguma habboona qofkani waa sidan markaa c v-gu waa maxay waa warqad ka wakiila qofkan shaqadoonka ah markaa waad garan kartaa muhiimadday leedahay warqad kaa wakiila ama wax kaa wakiila adiga dee waa inuu adiga ku matelaa waa inuu adiga wixaagi wanaaggaagii oo dhan soo saaraa ilaan adiga meeshii ma joogtid warqad baa kaa wakiila warqaddaasi waa inay noqotaa warqad wanaagsan oo si fiican wakiil kaaga noqota ma jiro sharci dhigaya c v-ga sidaa ha loo qorayo sidaa ha loo qoro siyaalo badan oo kala duwan bay dad badan u kala qoraan dad baa soo qora xaashi keliya dad baaba soo qora xaashi barhkeed dad baa soo qora 10 xaashi dadba wasibay u qoraan dad baa si u kala horraysiiya marka hadda waxay ku xidhan tahay shaqada aad qoranaysa iyo dadka aad u qoranaysaa waxa sida ay wax u rabaan c v-gu talabaad warqad sharciya maaha warqad sharciya la odhanaya sharcibu ayaad jebisay ama maad jebin waa warqadaan sharci ahayn laakiin waa warqad adiga kaa wakiila sidaa darteed maadaama ay wakiil kaa tahay ay wakiilna kaaga tahay wax wanaagsan oo ah shaqada aad doonaysa waa muhiim in aad c v-ga si fiican u qorto haddaba balaynu bilowno dhowr qodob oo ah sida c v-ga wanaagsan loo qoro iyo waxyaalaha ku habboon iyo waxyaalahaan ku habboonayn kow inta badan c v-ga waxaa lagu bilaabaa macluumaadka shakhsiga way kow ka yihiin magaca qofka cinwaankiisa halka laga helo iyo wixii tafaasiila kale waxaa jira halkaasi horta de magacaagaad qoraysa markaad Soomaali tahayna dee sideedaba waxaynu qornaa magacaago saddexan kaagii kii aabbahaa kii awowga marka anigoo kale marka magacayga qorayo waa maxamed cali bile sidaasaad u qoraysaa magacaaga waxaa kalood qoraysaa cinwaankaaga halka lagaa helo adduunyada kale waxay nagaga duwantay dee cinwaan baa jiro ama bio box ha noqdo ama adress wadda ah ha noqdo oo dee qofka loogu soo hagaajiyo wixii loo soo dirayo inagu guud ahaan dalkeennu ma laha adress layskugu soo hagaago sidaa darteed wax faa'iidaa ma lihed haddaad tidhaahdo waxaan ku noolahay xaafadda faarax Omar qaybteeda sidaa iyo sidaa wax badan cidi ka garan mayso oo dee dadka shaqada loo qoranaya marka innaga cinwaankeenna ugu muhiimsan waa laba waa emailkaaga iyo telefoonkaaga waa labada shay uuna haddii lagula soo xidhiidhayo lagaala soo xidhiidhayo emailka iyo telefoonka cinwaankan kale ee uuna hadalka ama xaafadda ama degmada aad ku nooshay wax badan tari maayo cidi kuugu soo hagaagi mayso marka waxa weeye magacaaga magaca aabbaha magaca awowga emailkaaga iyo telefoonkaaga haddaad magaaladaad joogto ku qoratana waa okay laakiin dad badani ma jecla inay magaalada iyo gobolkooda ku qortaan marmarka qaarkood bay kaa yar hor imaanaysa waxa laga yaabaa haddii dadkan aad u geysay inaanay sidaa uba sii jecleen qof meel fog joogo oo maaragtay soo qorta de waa dadka qaarkood yani qofka dee runtii cid u shaqaysan rabaa meel kastood joogto uu jecel yahay inaad u timaado laakiin dad unbaa jecel ama waxaaba laga yaabaaba inay adiga ku xanibtaayo dee ay noqotaaba wax lagugu reebo intaad meel sheegato markaa meelna ha sheeganin waxaad sheegataa un cinwaankaagu caadiya dad kale waxay qoraan waxyaalo tafaasiiloon loo baahnayn magaca hooyada meesha uu ku dhashay taariikhda uu dhashay inta caruuruu leeyahay waxyaalahaasi looma baahna ha qorin
marar badan dhibaatay kugu noqonaysaa masalan nimanka haddaan idhahdo anu waxaan ahay maxamed cali bele 11 caruuraan leeyahay waxaa laga yaabaa de in qofkan aad u shaqaynaysa idhahdo qofkan 11 caruura wataa rakaab badan buu wataa bal inaga daayabo xitaa haddaan afka ka odhan niyadday kaga soo dhacaysaa marka caruurtaadana ha sheegin meeshaad ku dhalatay ha sheegin da'daadana ha sheegin da'du marmar bay ku xanibaysaa ama aad xoog u weyntay ama aad xoog u yartay oo qofkan shaqada doonaya in loo shaqeeyaa ama shirkadda ama wasaaraddu ay kugu reebaysaa markaa da'daada waxba ha sheegin caruurta intaad leedahay waxba ha sheegin taariikhda dhalatay ha sheegin magaalada aad ku dhalatay ha sheegin waxyaalahaasi marar badan dhibaatay kuu keenayaan inta aasaasiga layska raba sheeg talabaad markaad inta aasaasigaa sheegto waxaad u ekaanaysaa qof shaqo u diyaarahee aan dee u diyaar ahaynuun hadal badan waxaa la qoraa had iyo goor marka intaa ku xiga shaqadaada taariikhda shaqadaada intaasoo sannadood waxaan ka soo shaqeeyey meel heblaayo intaasoo sannadoodna waxaan kalon ka soo shaqeeyey meel heblaayo intaasoo sannadood waxaan ka soo shaqeeyey meel heblaayo kale intaasoo sannadood meel heblaayan ka soo shaqeeyey taariikhdu marka intaa ahayd ilaa intaa waxaasaan soo ahaa taariikhdaa kale ilaa intaa waxaa kalaan soo ahaa taariikhdaa kale ilaa intaa waxaa kalaan soo ahaa taariikhdaa marka aad sheegayso tii u dambaysaad soo qadimaysaa taad iminka ka shaqayso haddaad iminka shaqayso taad iminka ka shaqaysaad soo qadimaysa haddaad iminka shaqayna tii iminka ka yaro horreysay ee ugu dambaysaad ka shaqaysaad soo qadimaysa ha ka soo bilaabin tii hore oo horena sanadkii 83 sidaasaan ahaa 84 haddana sidaa kalaan ahaa 92 baan haddana sidaa soo noqday oo halka oo taasi xiisa ma leh iminkaad ka bilaabaysa shaqadaan iminka hayaa waa sidaa iyo sidaa haddaanad iminka shaqahayn waxaad odhanaysaa shaqadii kuugu dambaysay 2013 ilaa iyo 2015 macallin ayaan ka ahaa jaamacadda heblaayo shaqadaadii u dambaysaad soo qadimaysa waxaanad ku bilaabaysaa waxaad ahayd macallin jaamacadeed taariikhdeed markaa ku xigsiinaysa haddii aanay jirin masalan wax badanood sheegtood ka soo shaqaysay wax mutadawacnimaad ku soo shaqaysay ku shaqee eeg hayse odhan inuu shaqadu waa ta mushaharka laysi siiyo ta kontraagga la saxeexana maaha haddaad mutadawac ku soo shaqaysay haddaad gelinka dambe caawinaysay dowladda hoose magaaladaada waad la shaqaynaysay ama meeyar ku-xigeenka ama xildhibaan ka tirsan dowladdaada hoose oo aad ka caawinaysay sida ama xisaabaadka loo xidho ama aad ka caawinaysay sida magaalada xashiishka looga guro taa lafteedu waa shaqo waxaad odhanaysaa waxaan kaaliyo u ahaa ama caawinayey xildhibaanka degmada magaalada aan ka tirsanay oon ka caawinayay arrimaha sidaasa eeg waxaa kuugu daran adoo idhaa waxba maan qaban jirin marka waa inaad waxba maan qaban jirin suuragalma waxbaad qaban jirtay ee innagunbaa shaqada u naqaana ta mushaharka laysa siiyee inta kontraagga la qaatee ama hay-ad weyn oo buurani ku qaadato ama wasaarada ku qaadato tan kaleed hoosead ka shaqaysa haddii kale waxaad odhan kartaaba 2 sannadood u dambeeyey shirkadda aabbahay hadday doonto shirkaddu maaha dee shirkad weyn in yaroo aabbahaley dukaan yaroo aabbahaley waa shirkadda aabbahay baan waxaa kala qaban jira hadda waxaa laga yaabaa shirkadda aabbaha $3,000 ma gaadho waxa ay ka shaqaysaa dukaankiisu laakiin waad sheegaysaa waxa labada ka xun adoo idhaa waxba maan qaban jir shirkadda aabbahay oo ganacsada ah hadduu rabo gaari gacan buu wax ku gadaa oo miis buu wax ku iibiyaa taasaad shirkadda sheeganaysa shirkadda aabbahay baan u ahaa sidaa iyo sidaa ama alaabada looga keenayo bakhaarada ayaanu soo qaadi jiray wuxuun waa inaad sheegtaa waa markay shaqada kugu yartay haddii shaqada kugu badan shaqo badanood sheegta haysana iyada shaqadaa badan baad sheegaysa shaqadii markaa sida u kala dambaysay sidaasaad odhanaysa isdaba dhigaysa waxaad ku xigsinaysaa tacliinta wixii aad tacliin soo martay waxaad ka bilaabaysaa tii kuugu dambaysay ha ka soo bilaabin dugsigii dhexe halkaasaan ka soo baxay dugsigii sare halkaasaan ka soo baxay jaamacadda halkaasaan ka soo baxay haddana maxad kalaan ka soo baxay haddana qofku wuu daalaya waayo ta macnaha samaynaysaa waa tii kuugu dambaysay jaamacaddii shahaadadaydii labaad halkaasaan ka qaatay ama shahaadadaydii koowaad halkaasaan ka qaatay tii ugu dambaysay saasaad u soconaysaa ilaa iyo dee tii u dambaysa gaadho dugsiga hoose iyo waxbaa tegin marka shaqo laga hadlaya dee haddii aanay intay waxbarashada kugu yaraato 2 layn kugu noqon doonad odhan wax ku camir haddaad ku camiraysana dugsi af ingiriisi ood dhigan jirtay sheego kombiyuutarada soo dhigatay sheego arrimahaa sheeg laakiinse dee adoo shahaadada jaamacadeed sitaa ilaa dugsiga hoose maaragtay dugsiga axmed gurey baan ka soo baxay sidaa ha u soconin macno badan shaqada unu yeelamayso waayo c v-gu waa ina uu yahay mid kaa caawinaya shaqadan aad iminka qoranayso dee dugsiga hoose dhexe shaqadan iminka aad qoranayso wax badan kaa caawin maayo inuu qofka uun tuso uun bal hadda magaaladaad ka timid iyo cidda tahay iyo waxaa mooyaane
wax badan kaa caawimaya marka waxba ha sheegin dugsiga hoose iyo kii dhexe mid kale ayana imanaysa xirfada haddaad leedahay sheeg xirfado shaqadan kaa caawinaya haddaad leedahay sheeg waxaad odhan kartaa waxaan leeyahay takhasus IT oo waan ku fiican oo barnaamijyada sidaasaan aqaanaa oo waxaan samayn karaa barnaamijyada oo softwareada ayaan diyaarin karaa oo sidaa iyo sidaa way kaa caawinaysaa waayo kulleyba wax kasta computer ku saabsanay shaqo kastood qoranaysa oo kaa caawinaya marka taani waad sheegaysaa tacliinta ka sakow waxyaalaha kale xirfadahaad leedahay waad sheegi kartaa oo waad ku dari kartaa waxaad leedahay haddii injineer laga rabo waxaan ahay cagafcagafyada waaweyn iyo wadistoodana waan aqaanaa haddii kale waxaad odhan kartaa sida maababka loo sameeyaan aqaan yacni wax kasta oo xirfadood is leedahay way kaa caawinaysaa hawshaasi waa inaad ku dartaa CV-gu had iyo goor wuxuu ku qurux badan yahay inaad u samayso waxaan loo yaqaano bulletka oo ah qodobo ama dhibic yar aad u horreysiiso ama lan yaro sidaasa si qofka akhriyaya maskaxdiisu qodobadan ayuu raacayaa sidaa iyo sidaa saas ahay sidaa iyo sidaa saas ahay hadal dhan oo taxanaa oo isdaba taxano sidii joornaalka ah ha qorin haddii kale macno badan samayn maayo qofku wuxuu kala garan layaa waxaad ka hadlayso laakiinse qodob kastood ka hadlayso hadday tacliin iyo jaamacad tahay hadday shaqo tahay mid kastaba hal mar intaad qorto melihi hal laynoon ha noqdo dhowr layn buu noqon karaa laakiinse qodob calaamadsanoo sidaas si qofka akhriyaya taa uu ka baxay tan kaluu galay tan kaluu galay tan kaluu galay sidaa uu kugu wado markaa CV-ga inta badan qodobee waxaa jira isna qodob kaloo muhiima oo had iyo goor CV-yada lagu qoro oo ah waxaan la yidhaha referenceka waxa weeyaan waa dad ku yaqaan oo wax kaa sheegi kara dadka qaarkii waxay ku soo qoraan dad waaweyn waxaa laga yaabaa meel shaqo loo qoran qofku wuxuu ku soo qoraya wasiirka maaliyadda agaasimaha guud ee duulista iyo hawada maareeyaha guud ee shirkad heblaayo arrimaha noocaasi waxay u egyihiin inaad maaragtay ismuujinayso dad waaweyn isku dhedhejinayso waxaad reference ka dhigataa haddaad qorayso horta haddaad doonto qasab maaha laakiinse haddiiba ay noqoto inaad qorato dad shaqadan aad soo qoratay khibraddeeda leh oo la yaqaan ama aad is leedahay haddii wax la weydiiyo waxbaa laga odhan karaa oo masalan waxaaba ka soo qaadaaba haddii aad soo qoratay maxaan ku idhahdaa waxaad soo qoratay maamulka iyo maaraynta waxaad ku qoran kartaa dee qof maamulka iyo maaraynta lagu yaqaano ama ha noqdo macallin jaamacadeed ama ha noqdo shakhsi kale ayaad soo qoran kartaa laakiin haddaad tiraahdo wasiir ku-xigeenka hebel baan soo qortay dee waa waxoogaa halkaa waad isku yaro badisa ha isku badbadinino wasiirre iyo dad waaweyn ha doonanin dad mihnadaadan garanaya doono masalan haddaad tahay injineer dhisa bariishyada iyo waddooyinka waad soo qoranayso waxaad odhan kartaa waxa referency ah injineerka dhisaya waddada magaalo heblaayo iyo heblaayo shirkadda hel caynkaas ayaa referency ah ama qofka ka shaqeeya howlaha guud sidaas iyo sidaasa qof shaqadan aad qoranaysa iyo u dhadhow iyo waxaanaad ka hadlayso ayaa inta badan lagu qortaa mid kale jirto aynu caado u lehno egdee CV-yadan hore maynu qoone midun baynu aragno intayna badan aynu iska sii daba sasawirana xagga dambe dad baa ku qora hobbigaygu waa reading inaan wax akhristo iyo inaan ordo iyo sport iyo maaragtay inaan xoolaha dee dadkan ajanabiga qaarkood yidhaahdaan xoolaha iyo ayda iyo baan jecelahay iyo wax saas waxbaan jecelahay iyo waxba wax akhriskaan jecel iyo waan ordaa iyo maaragtay jimicsigaan iyo waxyaalahaasi waa waxyaalo la kala wada naqnaqishayo aan run ahayn marka waa la garanaya inaan waxaan run ahayn haddaad jimicsi jeceshay haddii kale arrintu meesha kuma jirto marka waxyaalaha eg CV-gan waa inuu noqdaa wax dadka kale kaa duwood adigu aad shakhsiyan tahay marka waa inaanu waxaan dadka isu wada eega lasoo wada qoro kaaga eekaan waxaa jira marmar CV-gu kugu yaraado oo hal page ba uu dhaafi waayo oo wixii aad qortayba hal page dhaafi waayo adiguna aad jeceshay dee inaad yaro buunbuuniso ood yaro badiso ood maaragtay uu CV weyn kuu noqdo maarjinnada laga soo kaco warqadda dhinacaa iyo dhinacaa soo yaree si uu markaa ay qayb badanoo hadalkaagii aad qortay bogga labaad u tagto oo markaa uu CV-gaaga laba bog u noqdo maarjinkaa soo yare fartana in yare waaweyne haddaad dee kombyuutarka taqaana sadarrada
inta u dhaxaysa yara ballaadhi idan adigu waxaad ka socotaan waxa weeyaan waxaan halka page noqday uu yaraan waxa hor doona qofkan khibrad iyo tacliim ma leh qofkan hal page ba dhaafi waaye waxa doonaysaa in fartaadi ay tagto bogga labaad marka hareerahaasaad ka soo yareyn kartaa si ay hoos ugu dheeraato inta labada sadar ama labada line u dhaxaysaad yara ballaarin kartaa si ay hoos ugu yara durugto fartaad in yar ka durkan kartaa farta laagsa xoog ha waaweyneen oo day noqonin far loogu talagalay de qof aan waxba arkay marka haddii aad marka hore ay 12 kuugu qorneed oo kale 12 ka dhig haddii aad 12 13 ka dhig laakiin 13 ha sii dhaafin haddii kale waxay noqonaysaa haddii mesela roman oo kale tahay 13 ha sii dhaafin haddii kale xadka ka baxaysaa way fool xumaanaysaa waxyaalaha iska ilaalinaysa markaad CV-ga qorayso waxaa ka mid ah spelling luqadda hadduu ingiriisi yahay hadduu carabi yahay iyo hadduu af soomaali yahayba luqadda iyo spelling aad ku qoraysa grammarka aad ugu fiirso dadka intooda badan waxaa lagu nacaa ama lagu diidaa waxa weeye luqadooda iyo spellingkooda ayaa liita marka marka qofku spellingkiisu liito dee waa la diiday waxa loo qofka warqadii uu ka yani uu shaqada ku doonanayay isaga wakiilka ka ahaydba ay kala wada qalqaloocdo maxaa la siin karaa wax kala ah mas'uuliyad ma qaadi kartid waxa weeyaan warqadaadu waa in nadiif spellingkeedu aad u qurux badan yahay waxa kale oo iska ilaalinaysaa emailka aad ku qoranaysaa waa inaanu noqon email waxoogaa si yaro sidan inagu Soomaaliga u naqaano maahe email ciyaal suuq waa inaanu ekaan waa inaad ku qori maaragtay loveboy@gmail.com de adoo shaqo doonayo shaqo qof weyn doonayo maaragtay haddaad loveboy iyo ku qoratay iyo xidigta magaalada iyo maaragtay email yaryaroo maaragtay kii yaraayda iska ciyaal suuq maaha waa email u fiican yahay yani labada midnaba ma xuma laakiin hadda marka xagga shaqada loo eego qofka shaqada qaadanaya wuxuu odhanaya waxaan qofkan loveboyga iyo ka sheekeynaya xidigta magaalada iyo meesha jacayl lagama hadlayo wax laga hadlaya shaqo marka emailada yaryar fankiga ahee maaragtay yara riwaayadda ah iska ilaaliyo email wanaagsan oo waliba inta badan magacaagu inuu ka muuqdo maxamed@gmail.com ama cabdillaahi@yahoo.com ama علي يوسف ماركته hotmail.com magac iska degan oo maaragtay aan soo jiidasho siyaada lahayn ku daa marka CV-gaaga qorayso naanaysa ku qorin ama meelaha nickname-ka naanaystaada looma baahna magacaaga loo baahan yahay oo rasiina marka naanays iyo waxba ku sii qorqorin marka CV-gaaga qorto waa muhiim in qof kale ka akhriyo oo eego oo waxyaalaha ku qaldan yahay kula eego kaliya way hadiyo goor qaladka qof sameeya inta badan qofkaasi ma arko qof kale ka arka marka CV-gaaga qof kale u dhiibo ha kula akhriyo oo ha kula eego oo ha kula nadiifiyo oo ha ku sheego waxyaalaha uu arko inay ku qaldan yihiin arrin kalena aad bay muhiim u tahay warqad aad CV-gaaga ku qoraysa waa inay nadiif noqotaa warqad qurux badan noqotaa ha soo laabin dhexda ha ka soo jabinin waa in warqad fayl kale ama wax kale aad soo gelisaa iyadoo nadiifa waa inaad dirtaa mid kale waa muhiim warqadaad waa inaan photocopy noqon waa inaan warqada laga arag inaad CV hore ku yaalo inaad si photocopy garaysay CV shaqo kasta oo aad codsato CV cusub u samee hal CV un ha yeelan shaqo kasta oo aad codsato CV aad yara qurxisay oo aad ku fadhiisay shaqadaas shuruudaha laga rabo waa inaad samaysaa haddii kale waxaa loo arkayaa nin xabad CV haysto shaqadii soo baxdaba hadday beera soo baxaan iyo hadday soo baxaan wadooyin la samaynayo hadday soo baxaan maamul iyo hadday soo baxaan xisaabiye maaha CV kastaba waa inaad nadiifisaa oo aad ku fadhiisisaa talabaad CV-ga waxaa laga arkaa markaad isagiyo email dirto ee aanad isagoo warqada dirin ood email ku dirto waxaa la arkayaa maalintii aad save garaysay marka haddii CV-gaaga aad save garaysay ama November sanadkii 2015 waxa la arkay ilaa 15 inaad CV-gan taabanba marka qof caajisaad marka CV-gaaga had iyo goor dhowr maalmood ka hor intii aanad shaqadan dalban ugu dambaysa save garay si loo garto inaad tahay qof soo jeedo CV-giisa aad uga shaqaynaya waxaan rajaynayaa inuu casharkaasi ku anfacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.